الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، taariikhdu maanta waa 20 Rabiul Thani 1435 Hijri. waxaan ka warbixinaynaa laba hawlgal oo mujaahidiinta cadawga Ilaahay ku qaadeen kana kala dhacay wilaayadka Banaadir iyo Gadow. wilaayada Banaadir magaalada Muqdisho hadaan ku horeeyo weerar ayay mujaahidiinta xalay la beegsadeen kufaarta Afrikaanta ah oo fariisinta kule warshada baraafoonka ee degmada Hidiwaa. weerarkaasna mujaahidiintu waxa ay qaadeen xalay saacadu markay 4 saacadood fiidnimo meeshaasna muddo ayay xabadu cadawga Ilaahay ku socoto kufaarta Afrikaanta ah. muddo markay mujaahidiintu ku wadeen ayay ka joojiyeen ayagoo xeelad uga dan leh markii ay kufaarta isku soo baxeen ay moodeen in dagaalkii uu joogsaday oo ay rabaan inay bakti iyo dhaawici ay ururiyaan ayaa mar kale ay mujaahidiintu ku rogaan celiyeen. mar kale ayayna qaadeen oo waxa weeyaan rasaas xoogan ayagoo banaanka yaal u qabay inay ka tageen mujaahidiinta ay huuyeen. meeshaasna khasaare lixaal ayaa ka soo gaaray markay adkaysan waayeen rogaan celintaas sandarataasi ku hoobanaysa ay ka adkaysan waayeen sida caadada u ahayd oo lagu yaqaanay madaxdiis ayay u qaybiyeen xaafadaha ku teedsan warshadaas baraafoonka oo ay ka mid tahay xaafada suuqa xoolaha. meeshaas oo dad muslimiina waxyeelo ay ka soo gaadhay madaxdiina xalay ay ku ganahayeen. waa arrin lagu yaqaano marka ay mujaahidiintu kuruleeyaan inay ka argoostaan dadka mustadcafiinta ah oo masaakiinta guryahooda ururta muslimiinta ah ay ka argoostaan. waa arrin lagu yaqaano. weerarka xalay waa weerarkii afraad oo magaalada Muqdisho gudaheeda lagula eegta cadawga Ilaahay muddo 24 saac adood gudahooda. waxaa ka horeeyay weerarka xalay habeen hore oo 3 weerar ay mujaahidiintu la eegteen cadawga Ilaahay oo murtadiinta ah. mid wuxuu ka dhacay saldhig galbeed degmada Darkeenley, midka labaadna wuxuu ka dhacay Carafaad habeen hore, kan kalena degmada Daymiil xaafada Gudka ayuu ka dhacay. midka xalayna waa kufaarta Afrikaanta ah waxa lala eegtay. inta hadaan uga gudbo magaalada Muqdisho iyo warbixinteeda deegaanka leeyahay Kureedka oo degmada Luuq duleedkeeda mujaahidiintu maanta kamiin ayay waxay u dhigeen askar xabashiya oo halkaas maraysay kana timid dhinaca Bay kuna sii jeeday dhinaca Luuq. askartaas oo askar bedel oo laga soo bedelay kunta hore oo waxa weeyaan ay ku dhimuseen oo mujaahidiinta hore ay ugu ciqaabeen. kolonyadii ay wateen xabashidu mujaahidiintu gaari kamid ayay meelo la qaxiyeen, gaarigaas ay ku basbeelay kadibna rasaas ayaa xisay mujaahidiintu huuyeen. meeshaas xabashida waxa weeye dhibashay dhaawac ka soo gaaray. inta aan xaqiijinayna waa 3 askari xabashi oo dhibasho iyo 7 dhaawac. Ilaahay baa ku mahadsan. hawlgalladaas waxay iska yihiin hawlgalladaan diinkayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga aan ku daafacayno oo waxa weeyaan cadawga soo xadgudbo saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta dabadhilyada u ah oo adduunka aakhiraba tegay aan uga dhicinayno diinta iyo dalka iyo dadkaba. ayaguna waxa weeyaan ay horarka ku yihiin ay doonayaan inay boobaan oo waxa weeyaan dadka diinka naalo ayaguna soo waariyeen ay ku maamulaan dadkana ay adooma ka dhigtaan ay dusha ka rartaan hantidana midda dhulka ku jira iyo midda barda ku jira iyo midda banaanka taalintaba ay qaataan ay doonayaan. waxyeeladoodaasna meelaha ay qarsadeen bay ka muuqataa iyo waxa weeye waxay la dalacsiin dadka. annagu Ilaahay baan kaashanaynaa afkaana ciida u dari doonaa sida haddaba aan ugu daray insha Allah ta'ala. marka xabashidu meeshaas dhimasho iyo dhaawac bay ka daldali doontaa. waa markii saddexaad ay gudaha ku tabayso Soomaaliya billahi ta'ala waana markii ugu dambeysay. Ilaahay baan weydiisanaynaa inuu naga gacan siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.